السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان idin rajaynaya walaalaha sharafta badan meel kasto adduunka aad ka joogtaan. haweenka la nool ragga xubinkooda taranku wan yahay ayaa la ogaaday inay xanuun qoto dheer oo gudaha ay ka dareemaan xubinkooda taranka. marka labadan arrimood waliba aanay jirinna waabay ka sii halis badan tahay oo haweenaydu waxa ay gaadhaa heer ay xanuunka mar dambe ninka ay gogol la samayn weydo. ninka xubinkiisa taranku wan yahay marka koobaad haweenku waxa ay dareemaan xanuun aad u qoto dheer oo gudaha xubinka taranka ay ka dareemayaan xilliga lagu guda jiro galmada. haddii labadan shay la waayana dhibtu way ka sii badataa. labadan oo kale ah haddii aanay lubricants aanay jirin, yacni haddii aanu ninku xubinkiisa taranka wax jilcinaya oo dux ah oo jilcinaya oo ka jilcinaya haweenayda aanu marin, ama haweenayda xubinkeeda taranka wax jilcinaya haddii aan la marin, kuwaas jilciyayaasha la yidhaahdo haddii aan la marinna haweenaydu la nool ninka xubinkiisa taranku wan yahay waxay si joogta ah ula noolaataa xanuun aad u daran oo qoto dheer oo gudaha xubinka taranka ay ka dareemayso. sidoo kale forbalays waxa weeyaan inaad haweenaydii aan si fiican jidhkeeda loo soo jilcin, waan la soo baashaalin, waan la soo daaban, waan dareenkeeda la soo kicin oo aan forbalay lagu soo samayn. yacni haddaa jidhkeeda si fiican aan dabka loo soo gaadhsiin oo aan dareenka loo soo gaadhsiin oo aan dareenka lagu soo kicin oo aan sidaa markaa jidhka aan looga soo daadegin, haddii ninka xubinkiisa taranku uu wan yahay oo sida caadigaaba ay xanuun ka dareemaan, haddana haddii aanu lubricants lahayn oo wax jilcinaya isagoo qalalan xubinka taranku uu galo haweenayda, isla markaana haweenayda aan foreplay lagu samaynin oo aan la soo baashaalin, xaaladdan waxaa ka dhalan kartaba bay leeyihiin dhakhaatiirtu in haweenaydaasi ay soo gaadho dhibaato jidheed iyo mid maskaxeed oo hadhowta u saamixi weyda inay ninkaa mar dambe gogol ay iskugu yimaadaan. waxaa dhalan kara bay leeyihiin xanuun aad u saayida oo haweenayda jidhkeeda ku qasba inay mar dambe ninka ay gogol iyo galmo la samayn weydo, inay mar dambe ninka ay marada iskaga faydi weydo. waxa kale oo iyaduna jirta oo la soo qaataan arrintani inay keeni karto psychological issues, dhibaato dhinaca maskaxda oo haweenaydu xataa ninkii inay ka baqato, inay ninkii bayr ay ka qaato, inay cabsi ay ka qaato, inay baqashadu ay ku badato. haddii arrintaasi ay timaadana mar kastoo haweenaydu ay noqoto haweenay aan maskax ahaan u deganayn oo aan faraxsanayn oo aan shucuurteeda iyo dareenka ay ku raaxaysanaysa aanu si fiican usoo bislaanin, ninkan hamadu uma qabato oo dareen uma qabto, kumana raaxaysato. iska daa inay ku raaxaysato, ninkii way ka baqataa oo way ka fogaataa oo way ka durugtaa. arrinta noocaasa ayaa waxay ku keentaa haweenka inay dhibaato aad iyo aad weyn ay ka develop gareeyaan. haddaba waxaa laga yaabaa inay isweydiiso, haddii ninka xubinkiisa taranku uu wan yahay oo haweenayda xanuunka noocaasa uu ku keeni karo, isla markaana xubinkiisa taranku markuu qalalan yahay dhibtu ay ka sii badan karto, marka aanu baashaal ku samayn ama aanu forbalay ku samayn dhibtu ay ka sii badan karto, haweenayda ma ka dhali karaa markaa oo haweenaydii dhalmo ma samayn kartaa? jawaabtu haweenayda wuu ka dhali karaa. ninku dhalmada ilaahay baa bixiya, shahwadiisu haddii ay ku tagaan oo haweenayda jidhkeeda ay gaadhaan uurku wuu dhici karaa. markaa mararka qaar waxaa dhacda dad wada nool oo isqaba oo caruur wada leh, haddana xaaladdan inay ku wada nool yihiin oo haweenaydii iyadoo caruur waaweyn leh haddana dhibtan inay ninkii ay kula nooshahay. markaa waxaa muhiima oo runtii aad u muhiima, haddii ninka xubinkiisa taranku uu wan yahay inaan labada tuul ee muuqaalkeenu uu tilmaamayo ninku aanu ilaawin. weliba kasii muhiimsani waa baashaalka. marka la baashaaliyo haweenayda ee si fiican loo taataabto, qoyaan dabeeciya ayaa abuurma, xubinkeeda taranku wuu jilcaa, xubinku si kasta u wan yahayna way ku raaxaysataa. haddii kale inuu dhakhtar u tago
ودبعياشا أما شرعياشا وسوقاتهم لبدا تول بين الاستعماشون ومدكو عابريا انت أصدق صوروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.